ololahan qashin ururinta ay samaysay dalada Soonsa ee ku midoobeen neersinka macadka caafimaadka gobolka Sool ka fulinayaan cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa wuxuu yahay mid wax weyn ka bedelay maanta qashin fara badan oo cusbitaalka hareerihiisa yaalay iyadoo halkaasi ardayda ay kala qayb qaadanayeen neersinka iyo ardada macadka caafimaadka dhigata ayaa waxa ay dadweynaha magaaladu aad u soo dhaweeyeen waxqabadka ay sameynayaan dhalinyaradan dalada Soonsa ku midaysan ee neersinka macadka caafimaadka gobolka Sool qashin ururintan ayaa waxa ay kaga qayb qaadanayeen qalab dhawaantan ay siisay ururka bisha cas ee ka howlgala gudaha magaalada Laascaanood iyagoo ugu baaqay guud ahaan dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood in laga qayb qaato kor u qaadista nadaafadda isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Muuse Geelo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay caawintan ay cusbitaalka ka caawinayaan dhalinyaradani sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadiisa waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan soo beegatay in cusbitaalka ay yimaadaan marar hore ba saasoo kale u yimaadeen si ay wixii nadaafada oo xagga qashinka iyo waraaqaha iyo bacaha iyo xagaa baynu ku jiraado xilligaas oo kale waa xilliga ay aad u timaado ilaa saakooraha sabadeen arrinta dadweynaha reer Sool wax tabarruc horta ay ka geystaan caafimaad sidiisba kale ma jiro qaadanaysa saasaan ku wargayna dadka wixii inuu dare ka hayso waxa la yiraahdaa ay damqayso dhibaatooyinka qashinkaas caafimaad xumada u keeno cidii inuu dareemaysa waxaan jecelahay inay saas oo kale uga qayb qaataan ayaguna halka ka hadlay qaar ka tirsan dalada Soonso oo iyagu ku dheeraaday inay wax ka qaban doonaan caafimaadka iyo sidii loogu dadaali lahaa nadaafadda jeedka ololahan maanta aanu qabanano hadaan Soonsa waa howlgal ama waxqabad aan doonayno inaanu ku furno dalada dhalinyarada ardayda iyo neersinka maxadka tababarka caafimaadka ee gobolka Soonsa aragtaan Sool Nursing Institution maanta waxqabadkan maanta waxaan ugu talagalay inay noqoto talaabadii ugu horeysay ee ay Soonsa qaado waa waxqabad aan ugu talagalay inaan ku furno maanta aan baabada ugu furno Soonsa oo runtii ay dambeyn doonto waxqabadka jeedka aan ugu furnay daladan hanoo soo koobayadaan ka hadlo aan ugu furnay muhiimadda aan ugu furnay waxa weeye in aanu gaarsiino guud ahaan bulshada inaanu gaarsiino waxqabadka annagoo ku qabanayna daladan adeegsanayna sidoo kale waxaan ku furnay inaanu daladan in aan ku soo haageernamaan isku xidhno guud ahaanba ardayda wax ka baratay qalabkiisay iyo kuwa soo gali doona iyo kuwa dhigta SHS isbitaalkoodii meesha koowaad ugu muhiimsan oo qof kasta oo bulshada kamida loo baahan yahay inuu ka qayb qaato si uu xaq ugu leeyahay oo hadduu xanuunsado meesha koowaad la geenayo waa xagee waa isbitaalka haddaad wasiir tahay haddaad yani taliye ciidan tahay haddaad aqoon-yahan tahay meesha loo baahan yahay inaad yani wax ka qabatid oo bulshada ka dhaxaysa waa isbitaalka qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo qashinka yani marka koobaad muhiimadda koobaad si la isaga nadiifin lahaa ururka Soonsa kuna hadlaya magaca gudoomiyahayaga halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda bisha cas iyo waliba isuduwaha wasaaradda caafimaadka inta kadib waxaan aad ugu mahadcelinayaa xubnaha ka tirsan Soonsa iyo waliba ardayda iyo neersinka iyo dhamaan wixii ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed waa markii ugu horeysay dhaqaaqii ugu horeysay ay ku dhaqaaqdo ururkan Soonsa waxaana markii ugu horeysay aanu shaqagal sameeyno waxaan rajeynayaa insha Allah intan iyo in ka badan ba inaan sameeyno anagoo ah ardayda iyo waliba new nursing oo ku midowday dalada ardayda Soonsa waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa macallimiintayada iyo waliba dadkii ilaha caafimaad ee nagu noo soo saaray maanta midhahayoodii aan nahay dadkan maanta ka qayb galay ololaha nadaafadda sanitationka ee aan maxaan ku dhahday ugu deeqnay annaga oo markii horeba ay ahayd wixii aan ugu deeqnay inay yihiin dad activiin ah oo muctamar ah oo wax qabad leh oo iyagoo aan cidina wax ugu deeqin cidina wax u soo iibin iskooda iyagu isu maamulay iskooda iyagu isu xilqaamay si volunteer ugu shaqeyn jiray cusbitaalka iyo magaalada gudaheedaba aan ugu deeqnay waxa aad noogu muuqata saaka in maxaan ku dhahday aan sidii aan ugu dooranay ay yihiin dad maxaan ku dhahday matala oo maxaan ku dhahday ka soo baxay waajibkoodii iyagoo saaka hawshii durba ku bilaabay oo maxaan ku dhahday 3 maalmood gudahood ee gacanta ku hayay hawshii muuqata saaka inay bilaabeen aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waxaan kale aad ugu mahadcelinayaa waxaa jirtay muddo dheer oo maxaan ku dhahday volunteerka bisha askarigiis uu la baxaadagi jiray inuu sanitationka magaalada ka qayb qaato aad iyo aad bay u mahadsan yihiin anigoo bisha casna ka tirsan iyagana ka tirsan oo labaduba ay guul ii tahay inay yihiin dhalinyaradii ugu firfircoonayd ee gobolka oo ku soo biirtay ardaydii bisha cas ee maxaan ku dhahday hore uga shaqeyn jirtay iminkana insha Allah bidmillah anaga oo isku duubana aad dib uga arki doontaan anagoo ka wada shaqeynayna anagoo kala gaarna aanu ka shaqeyn doono labadaba aad iyo aad u mahadsantihiin
buu mahadsan yahay maxaan ku dhahdaa baahida gobolkeena waxa weeyaan iyo muuqaalkeeduna waa nin ragna waa ogyahay nacsan loo sheegi maayo cabdikariin nolol Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool